الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan soo dhameynay silsilad dheer oo ahayd guurka iyo wanaagiisa 11 xalaqo ahayd laakiin walaalo badan ayaa waxay ii soo qoreen warqado soo qoreen dhaheen intii ugu muhiimsaneedba kamaadan hadlin oo waxaa ka hadashay kaliya wadadii loo soo mari lahaa ilaa waxaa soo istaagtay habeenkii isguursadeen intaasna wax dhib maba jiraba inta ugu muhiimsaneed oo ninka iyo xaaskiisa hadduu wax dhex maro sidii isu fahmi lahaayeen ninka siduu u kasban lahaa xaaskiisa qalbigeeda siduu u kasban lahaa gabadha sidee u kasbaneed ninkeeda qalbigiisa sidee u kasban lahayd hadduu wax dhib yimaado sidee loo xallin lahaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sidii uu la dhaqmi jiray xaasaska nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam sidii uu la tacaamuli jiray nabiga intaas dhan waxay dhaheen waa ballan qaaday kamaadan hadlin sax waay taas way hadda ugu soo noqonay mar kale alxamdulillah ilaahay wuxuu ii sahlay walaalo barnaamij ay soo diyaariyeen oo fikrado oo gabadha ninkeeda qalbigiisa sidii ku kasbaleed ama ninka qalbigiisa sidoo ku kasba xaaskiisa sidoo ku kasban lahaa waa barnaamij aad u qiimo badan mawaadiic aad u tiro badan nimanka waxay raadiyeen dumar aad u tiro badan oo khibra leh ay weydiiyeen sidee nimankaaga qalbigiisa daarta inaad kasbad sidee u kasbanaysaa arrimo aad u tiro badan ay sheegeen niman badan oo sidoo kale khibro lehna way la kulmeen xaaskaaga qalbigeeda sidee u kasbaneed ayagana barnaamij fiican ay kasoo diyaariyeen taasaan gelaynaa marka insha allah tacaala waxaan idinka codsanaa marka insha allah tacaala silsiladan sideen u wadi lahayn oo idinku wanaagsan maadaama dadka ka faa'iideysanaya ana ugu horeeyo wax ka faa'iideysanayo idinkana insha allah tacaala waa ka faa'iideysan doontaan sideen u wadnaayo ma silsilada gabadhan oo qalbigeeda say ku kasbataa miyaan dhammaynaa mise waa isku darnaayo maalinna waxaan ka hadlaynaa arrimo oo ziyaadi tusayso gabadha qalbigeeda ninka qalbigiisa ay ku kasbato maalinta kalena waxaan ka hadalnaa ninka xaaskiisa qalbigeeda siduu ku kasban lahaa mise hal maraan gabadha dhammaynaa oo kadib ninka umaana hal maraan dhammaynaa sidee idin la quman insha allah tacaala waxaan rajaynaa idinka codsanaa inaa arrintan ka soo jawaabtaan meeshii loo bato baan samaynaynaa insha allah tacaala labada option waxaa waaye gabadha keeda keligiis maan dhammaynaynaa oo kadib ninka maan bilaabaynaa mise maalina gabadhan ka hadlaynaa maalina ninkan ka hadlaynaa labadaas option a gabadha keliyaan dhammaynaynaa b ninka keliyaan dhammaynaynaa maya c waa isku daraynaa a e b e c marka saddexdaas insha allah tacaala optionka idinka idinka sugaa jazaakum allah khayr baarak allah fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu